ambaqaadka geediga sida awrta loo raro heesaha u gaarka waxa lagu aloosaa magaceebaheeyo adiniyo af wada jira alif la kordhebey alif la hoos dhebey alif la gooday ayeeyo waa ayeeye haddana ku soo dhowaada story time with ayeeyo sheeko sheeko xariira ayeeyaa sheegtay maanta waxaan idinka sheekaynayaa sheeko soomaaliyeed sheekadan waxaa qortay inan la yidhaahdo huda marka sheekadu waxay ku saabsan tahay gabadh raadinaysay in ilaahay ubad siiyo beribaa waxaa jiri jiray reer isqaba ninka waxaa la odhan jiray saalax gabadhana waxaa la odhan jiray cambaro ilaahay ubad ma siin marka ilaahay ayay ka baryeysay inuu ubad siiyo maalintii dambe ayay saalax waxay ku tidhi waryahe saalax war saalaxoo dee cidlaa i dishee meeshan unbaan fadhiyaa keligay waxaan ku madadaasho maadii keeni markaasuu yidhi cambaro maxaad jeceshay inaan kuu keeno dee garan maaye saalaxo waxaan ku madadaasha ii keen ayay tidhi cambaro waayahay balanaa wuxuun keeni saalax wuu shaqo tagaa maalin walba cambarana gurigay joogtaa qadadii bay sii karisaa gurigay nadiifisaa ilaahay bay baridaa inuu ubad siiyo way ubad jeceshahay marmarka qaarkood xaafadda dariska ah ayee jaarka ah ayay caruurahooda la ciyaartaa saalax baa maalintii dambe yimi isagoo mara wuxuu ku soo duubay sido waar saalax maxaad sidaa bay tidhi iyadiioo faraxsan intay ka hor oraday markaasuu yidhi bal hadda cambaroy eeg waxaanaan kuu sidaayay wuxuu dhiibay maradii bay furfurtay cambaro gudaheedii waxay ka heshay ceesaan yar ceesaantu nayl yar nayl ceesaan maaha waan qaldameeyeeye nayl yar bay ka heshay nayshu waa ilmaha ay laxdu dhasho laxdana afka qalaad waxaa lagu yidhaahdaa shiib ilmahana waxaa lagu yidhaahdaa laan marka ilmihii yaraa ee nayshii ahayd ayay la booday cambaro allah qurux badanaa baliidhiib aan maydhe aan dharu geliye aan xaragaysiiye aan la boodboode aan boodboodsiiye baliidhiib iidhiib bay tiro gurigii bay la gashay nayshii yarayd ayay dabadeed masaasad soo qaado caanay siisa madiimad bay ku shubtay caanay madiimad masaasadii bay jiqi weyday madiimad bay ku shubtoo madiimadii ama baaquligii ayay ka cabtay nayshii caanihii habeenkii markii la seexanayay ayay tiri saalaxoo dee nayshii ubax baan u bixiye ubax sooma soo seexiyo markaasuu yidhi xaggaad seexinaysaa markaasay tiri dee sariirteenna markaasuu yidhi cambarooy sariirtan adigiyo aniga iyo wixii ilaahay ubadina siiye mooye cid kaloo seexanaysaa ma jirtee orod naysha daaradda ku xidh allah saalax bilaa bahal iga cunaa markaasuu yidhi bisadina ma cuni karayso bahalkanina halkan ma jooge naysha daaradda ku xidh way qaaday qol yaroo daaraddii ku yaalay ayay ku xidhay nayshii albaabkii oo xidhay naa ubaxee dee saalax diidiye in sariirtii lagu geeyee halkaagaa ku jiro oo ha qaylin oo ha buuqin hayadhe bay tiri habeenkii iska seexatay subaxii hore ayay maqashay nayshii ole baax way soo cartay alla kaadibaa haysa way kaxaysoo dabadda yargeysa kaadina ma hayne way cidlootay dabaddii bay siiro taagtaageen way soo noqdeen naysheedii ayay ka mabsuuday cambaro way u sheekaysaa way ciyaarsiisaa maalintii dambe ayaa nayshii kortay nayshii markay kortay ayay cambaro soo qabatay naayaa ubax naa waadigan weynaadee naa waadigan qurux bataye naa ubaxee maxaa tala ah weeliga xali maysid koob shaaha ii soo karin maysid guriga maalinna iga fiiqi maysid alla ubaxeey sidaan ku odhan
ubax waxay samaysaa kolka ama nayshi aqalka dabadiisa markii riyuhu maraan ama ida maraan oo dabadda aysan qadhaxayo xoolo ka maqasho ayay cidaa naa horta maxaad la cidaa ayay tidhaahdaa cambarana maalintii dambe ayay tiri iyadiioo weynaatay oo ay ceesaanteedii yarayd iskala ciyaarto ayay cambaro waxay samaysay ay tiri bal haddaan eego waxanaad yaa ubaxee balaan eego waxanaad markay riyo meesha maraan ama ida xoolaba markay dabadda maraan waxanaad la qaylinayso balaan eege inakeen albaabkii bay furtay markay albaabkii furtay ayay nayshii yarayd soo booday ilan dabadday rabtaae markaasay dabaddii adhig maraya oo suuqa loo soo iibgeeyey ayay aragtay markaasay nayshii yarayd taw intay tidhi ayay adhigii dhex gashay cambaray lahayaa buu keenay naa ubaxey kaalay neefkii waa neef xoolaahe de xoolihii kale waxay la bacaaca lahayd xoolo kaley rabtee xoolihii bay ka raacday adhigii nin watay oo soo iibinayeyna wuu ku darsadoo dabaduu kala galay isagoo ulsita adhigiibuu kaxeeyey didididididi cambaro way daba carartay war meeshayda ii reeb ninkii wuu yaaba naanaylaad leedahay ma soo geline waxan waa adhigaygii iga hadh buu yidhi markay cabaar daba socotay aragtay inaanay kasoo reebi kareen bay cambara iska soo noqotay gurigii bay kusoo noqotay gurigii ayay iska fadhiisatay nayshaydii qurux badan ee ubax ee aan u gabiyey ee aan u heesay ee aan u maydhay ee aan u labisay adhi bay iga raacday dabadeedna waxay iska sugtay intuu saalax ka imaanayay saalax baa habeenkii yimi saalax markuu yimi ayuu yidhi naa cambaro iska warrama soo lama fiicno calaykum assalaamu calaykum tiri calaykum assalaam waa la fiican yahay saalaxoo laakiin ubax tagtay wuu yidhi oo ubaxna yeehay markaasay tidhi dee sabeentaydii yarayd soo ubax ulamaan bixin waanigii u heesay waanigii u maydhay waanigii u labisiyey waanigii dharjiyey waanigii koriyey waanigii koolkooliyey haddana way iga carartay oo adhi bay raacday saalax wuu qosla dee soo xoolo may ahayn neef xoolaha bay ahayd oo ma la soo hadha dee xagaan kala soo hadhay ninkiina wuubay la dagaalamo ninkii adhiga watay oo sariibadda usii wadaana wuxuu yidhi ana iska lehe oo qaaday oo iminka sabeentaadi waa lagaa qaaday haa dee bal waayahay si un baynu yeeliyen yaa kolley way weynaato inay wax dhashay doonayso adhiga inaga raacdee iska dhaxfo si un baynu yeeliyen subaxii markay tooseen ayay tidhi cambaro haddana saalaxoo masuhee dee maxaan ku madadaalayaa ilaan ubax tagtay dee bal si un baan yeeliye cambaroy isug halkaasaan maanta inoogu joojinayaa sheekadan waxaan idinkala soo hadlayay story time with ayeeyo sheeko xariira ayeeyaa sheegtay waynoo isniinta dambe haddii aan la yidhi alif la kordheebey alif la hoos dheebey alif la gooday alif la kordheebey alif lagu reeb alif la hoos dheebey yaa lagu reeb alif la gooday